صوم ما أصحى صلاة الآن قفا تكونين ku salaysan tahay ruuxa salaada ka tagay ma muslima mise waa gaal haddii la yidhaahdo ruuxa salaada ka tagay waa gaal macnaheedu soon kama asaxayo laanna waa murtad diinta ka baxay wey ruux murtadoo gaalana ilaahay waxba kama aqbalo ilaa uu diinta kusoo noqdo waana masale khilaafiya oo sida caan ah ilaa waqti hore taariku salaadku ma muslimba mise waa gaal masaladaas salka ku haysaa sida daahirka axaadiista iyo quraanka laga fahmayana taariku salaadka salaada ka tagay ra'san inuu muslim yahay uma muuqato inuu gaal yahay diinta ka baxay ayay masaladu ila xoog badan tahay laana adilada ku soo aroortay marka la fiiriyo gaalnimadiisa xoog badan hadduu gaal yahay oo diinta ka baxay oo muslim uusan ku tirsanayna gaal ilaahay cibaado kama aqbalo bil ijmaac way inaan gaal wax laga aqbalay sidaas daraadeed soonka waxaa ka horeeya salaada ha tukado ilaahay uu toobad keeno ha soo noqdo markii islaamnimadiisu sax noqoto cibaadaadkii markaas ay soconayaan taas mas'ala khilaafiya saan hore u sheegnay wallahu a'lam